بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلهاي ميل والبدوندا كجوجتين كسو دوادا قحوتي ورداب تي في maanta insha Allah mawduucan wuxuu ku saabsan yahay wararkii ugu dambeeyay dibadejinta wadanka saddexaad dadkii maalmihii u dambeysay loo wacayay oo IOM ama IANIS ama sidoo loo yaqaano dadkii caafimaadkii ka dhacay oo falaa in badan sugay oo waagi Donald Trump iyo COVID-19 saameeyay ayaa maalmihii u dambeysay loo yiray waxayna aadaan dhadhaab marka waxyaabihii la soo dhahay iyo rajada buufiska iyo arrimo kale muhiim ah ayaad muuqaalkan kaga bogan doontiin fadlan waxaan iga codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelka oo marka kuu hore aad tahay ama horaan aad subscribe noo saarin fadlan muuqaalkan like noo saar subscribe noo saar noona jambaleelkana furo si aad u hesho macluumaadka joogtada aan soo gelino oo ku saabsan qaxootiyada caalamka aan ku bilaabo qodobkeena koowaad dadkii maalmahan u dambeysay loo yeeraayay oo dhadhaab booqanayay taariikh 6 taariikh 7 taariikh 8 ayaa markii insha Allah aan iga hayaa jawaab waxyaabihii la soo dhahay dadkaas waxay ahaayeen dad fara badan ayay ahaayeen kala nooc ayay ahaayeen dadna prescription la balamiyay dadna waxay ahaayeen falaaysiyo oo caafimaadkooda ka dhacay waa la isku dhex jiray dadna CIS ayaa loo budgarinay laakiin dadkii aan ku bilaabo oo loo dadka waxay u badnaayeen dadkii falaaga muddo badan ka daahday oo waay Donald Trump iyo COVID-19 saameysay ay u badnaayeen dadkaas waxaa la dhahay su'aalo ayaa dad qaarkood qoyskooda ka mid laga yeeshay su'aalo yar oo fudud su'aalahaas oo waqtiga soo dhalan qaxootiga iyo wax inay guursadeen inay ilmo dhaleen iyo waxyaabahaas la weydiiyey kadibna waxaa loo sheegayay qoyska kiisaskooda in macnaha la kala qaadi doono qoyska macnaha tusaalahaan hal qoys ayaa laga yaabaa 10 qof inuu kooban 10 qof ayaa marka wixii qaangaaray 18 sano ka weyn yahay oo ka weyn kiis gooni ayaa loo sameeyay marka waxaa loo sheegay in kiisaska dadka qaarkood la qaadi doono sida u dhaqsiyaha badan laakiin waqti hebel lama dhihin waxay dhawaan nii soo wici doonaa qayb idin kamid ayaa nii soo wici doonaa marka mar kasta telefoonadiina hadaarnaado si aan kiisaskiina la boobsiinay marka waxay dhaheen COVID-19 horaan saameysay iyo Donald Trump hadda wadanka Mareykanka waxay bilowday qorsho oo lagu dardargelinayo in dadkan falaaga ka dahay dadkan oo buufista suwayo iyo qoysas badan ayaan qaadi doonaa cusub ay leeyahay marka sida u dhaqsiyaha badan sanadka cusub mashruucyo badan ay wadanka Mareykanka hirgelinayaan waxayna la tartamayaan wadanka Canada ayaa la tartamaya Mareykanka maadaama Canada aad la socotiin in 500,000 ay rabaan inay qaadaan wadanka Canada marka Mareykanka iyo ay kama liitaan ayagana waxay qaadi doonaan mashruucyo badan ay la yimaanayaan sida hadda ay sheegeen in qaar ka mid ah shaqaalaha u shaqeeyo IOM ama qaybtan oo socdaalka ee wadanka Mareykanka waxay dhaheen waxaan boobsin doonaa kiisaskii horaan oo bandit ahayd ayaan sida u dhaqsiyaha boobsin doonaa marka rajada su'aasha la weydiiyay waxay ka mid ahayd in dad cusub rajadooda dadka oo taarikooda nadiifka ah oo tabaana aan qabin rajadooda intee la egtay ayaa marka waxay dhaheen in qof inkastoo dadkan soo qaadanayna baqtan nasiib ay tahay laakiin balse dadkan priority waxa mudnaanta iska leh dadka minority-da dadka middle-ka dadka taarikooda nadiifka ah iyo mashruucyo badan ayaan hirgelin doonaa laakiin balse sida u dhaqsiyaha badan kiisas badan ayaan qaadan doonaa dad cusub waa loo yeeri doonaa marka hadda qoladan aykan waxaa loo balamiyay in telefoonkooda ay mar walba uu daarnaado si ay fursadda aad ay u fiican tahay dadkan taarikooda nadiifka ah oo aan saarneen wax tabaanda ah iyo waxyaabo kale aan saarneen marka fursadda aad ay u fiican tahay waa aqbaal aad u farxad badan marka dadka waxa u badan 1992 ayaa u badan dadka badan taarikooda nadiifka ah balse dhammaan inta buufiska sugayso qof walba rajo u leeyahay qof hadduu taar uu leeyahay uu taarkiis nadiif u yahay oo uu fiican yahay waa buufiska rajadiisa aad ay u wanaagsan tahay marka waxay ballan qaadeen in qoysas badan ay qaadi doonaan marka rajo aad u fiican waaye marka sanad cusub inkastoo gaalada mar kasta ay qorsheeyaan gaalada 10 sano soo socdo qorshahooda u diyaarsan yahay laakiin mar qaar waxyaabo ay isbedelo waxyaabo ay ku xisaabtamaan ayaa dhici karo balse rajada aad ay u fiican tahay marka dadkan hadda waxa la yaabaa qorshahaas ah in qoysas badan ay soo dhijin doonaan in isbedesho way dhici kartaa laakiin balse qorshahooda waxay dheen waan dadaali doonaa sida dhaqsiyaha badan marka mid kale aan ku daray waxa ka mid ah qodobka saddexaad in maalin hore markay u dambeysay muuqaal ay soo dhigeen muuqaalka soo ah wadanka Canada qaabka aad shaqo fiisa aad ugu codsan lahayd adigoo inta joogo taar nadiif hadii aad qabto marka fiisaha qaabka ku helaysaa qaab online ayaa jirto oo lagu xareysto
muuqaal ayaan kasoo sameeyey laakiin balse muuqaal oo la sharaxay qaabka loo buuxisa ma soo sameynin muuqaalkaas waan soo wada insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo berito ayaan soo sameyn doonaa muuqaal ku xuga waaye fadlan aad ayuu mahadsantiin muuqaal ku xuga ayuu noqon doonaa siduu dhaqsiyaha badan berito ayaan soo sameyn doonaa qaabka loo xareysto waa qaab aad u fudud waana online telefoonkaada gacanta adoo haysta ayaad ku xareysan kartaa marka asxaabta qaybta haddii intaas soo gaartay fadlan like nooga camaamada noona subscribe noo saar haddii horaan u saarin noona sheegaray muuqaalkan